turkigu qofka aan maskaxda lahayn wuxuu yidhaahdaa qafaayoq buu yidhaahdaa turki waxaan leedahay iidoor qafaayoq iyo ingiriiska badan la leeyagaba qafaayoq wey taa intaasaan ku darsanaya anigu nimankan wax badan baan hore ula soo hadlay ilaa 23 markay waxaan bilaabeen hadalladii aan idhi waxaa ka mid ahaa mahuraanka ciidda iyo arlada kula mudnaan weyday mabda iyo sharciga loo dejay iyo madaxda loo yeelay haddii aad mucaaradayso waa maaddo kuu furanay si kalaa wax loo maamiyaa oo loo mutahiyaaye aniguba mashquul baan ahaa mararka qaarkooda daarood codow madhida iyo mala'awaalkiinu waa waxaan maslaxadda ugu helay mooralkii jaba ee la midee mataanuhu hadday kala maqnaayeen la midee mataanuhu hadday kala maqnaayeen inaan calankan midab doorisana la marsiin waa inaan calankan midab doorisana la marsiin waayo waxaan kaloo ku idhi hanqaltaagga meeshii fog iyo halaxsi beenbeena hoostaada eeg baa ka ron haddii ma kaa dheer hadhcad baa la gaagabsadaa hadalka qaarkiin hogga dheer waxaa loogu dhacaya masahaadaanta ee qaranka loo hiifaya waa hunguridoon habad iyo qaraamaadkii baa loo handanayaa in dhawaad hungan laga ahaa hiinsigii yurub warahoogooyin oo faransigii heeryadii guray hay ahaata dheer buu jiraa helila maysaan anoo helaya soomaali oon kala hantaaraynin oo calankan loo wada halgamay gaadh ka wada haysa huwan baynu nahay diiday iyo hil waqooyibe huwan baynu nahay diiday iyo hil waqooyibe waxba howgahay sudhan ma raba hololabtiinni